قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحاولنا برا أو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لسان كيس نوسو مرسيي سيدا عن كل الدود لهين أبان سقد إلهين قال هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تقريبا سد أحمر أنا ملينا القرآن كسو أرورتي مركا أفرادنا إن يتحي فقلنا هاتوا برهانكم صوت الدوب الله سبحانه وتعالى وحونا برا قال هذا مركي أين دهان تناصح إن لأنا أوكي قل هاتوا برهانكم وحياد عدينا هي 60 دوكومنتيدينا فايلشينا عديمهينا لا إمالة ميسك سوف ديست أنا متقالة وأن مالين حضر قادمني وعن كل نبي الله عيسى من قصنا أيوكل أنت وأنت يا أمس وحي أيجا أمسيين لما شرين وحوري صدق حصنا كل أنت وحن كده أوكي أدون كان حيري صدق يصدق حصنا وكبدين يعني أنا كلية يا وحلقة يا إن أنا أفرتشن أم بكونتن سنة جلو وحيجو ري وحيقدم بي وحاري يا مامولا إلا قفكم مركو مدحونا مركو حلقة كتجو أم بقول أنتو لغاية 4 ساعة أم 46 ساعة جدود وحلقة يا in kumeel gaar ama doorasho kale wad dalku uu aado marka waxa ay raahdo dhintay ee aad aaminsantiin uu dhintay anku aan aaminsanahay wala rafciyay miday ahaataba Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut asoo hurday hadii la qaaday nafta la qaaday iyo inuu dhintay iyo si kastay ahaataba kala aragti duwanaashadaas isoo wada duub yaa maamulaya adduunkan ilaan hadii aad ogolaatay inuu dhintay ee aad ogolaatay inuu raashin cunay ee aad ogolaatay inuu wadaalo ku run yahay biyo cabay ee aad ogolaatay inuu hooyo nuugay hada ilaah wax cunaayo oo wax cabayo ee seexayo diwaab bini aadam muga waxa ay bal cadeynteedii keen waxa inta ma dadka inta yaa maamulaya adduunkan marka walaalayaal aan runta aan u sheegno gaalada qasam ma ahan inaan la dagaalno oo dhaano كلي وحاكو فلان قل هاتوا برهانكم عديمهين الله يمهد انت تاكو فلان بس وايو عنكو عادي اهام بدين تا اسلامك ان سيدا انكو حقيقي كرنا اني صح تاي مركي لغتاكو ومن يبتغي غير الاسلام دينا قران كان يصنع مقل لغتاكو سيدا قود با عدي ادفينو قانون كان اوغو دنبيا لغاتا تصالح هذا قانون كي او محل لها دونالد ترامب iyo kan hadda xilka haayo ee magaciisa sheeg ma xasuustay qaanuunka hadda wadanka ku maamulo kii Donald Trump ma ahan kii Barack Obama ma ahan ee waa qaanuun iyo budget asiga oo keensaday dabcan wixii waaweyn oo dalka ka dhaxeeya kaas waa gooni laakiin siyaasadaha gudaha iyo dibadda iyo nolosha asaasiga dawlad walba waxay keensataa wax ayagu dalka ay ku maamusho muga hadii aan ogolaanay in diintu ay tahay qaanuun ay tahay wax dad ku noolaado haddii ahaa lahayd salaad haddii ahaa lahayd laisku xukumo haddii ahaa lahayd yani nolol guudba hadday tahay waa inaan muga qaadano aan ku qancino inay tan sax tahay haddii mid kala timaado aan aragno maba imaanaysay waxa u daliila khaatim an-nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim Soomaalidu waxay dhihi jireen faqalla waay ma loo fadhiha 1500 sano nabi kale soo socdo inuu san jirin waa dareemi kartiin marka laga tago quraanka iyo sunnahaba walaalayaal haddii aan ku qancino ee aan runta u sheegno gaalada waxaan noo badbaadayo diinteyna waxaan noo badbaadayo ubadkayna waxaan noo badbaadayo noloshayna waayo dagaalka mugi lagu jiro colka haddii aad mugasho dhufeyskaaga ku jirto ee aadan hore u bixin in dhufeyska lagugu yimaado badantaa maalinta dambe laakiin haddii aad weerar qaado ee aad hore u baxdo ee markii xooga aad baqdaba aad dhufeyskaaga ku soo naqato dhufeyskaaga ku badbaada lagu imaamaan muga inaan diinta ka shaqeyno weerar qaadno gaalada runta u sheegno diinta ugu yeerno aqalada ugu tagno jeedka kula kulanno anunka ay waxay dan noogu jirtaa waayo tayna ay waxa aanoo fadhiisayso oo caruurtayna ayaa fahmay midda kale dadkeena waaweyn islaanaatihin kaliyana la ku albaabiyey waa laga yaabaa haddii qofku weydiiyo ku yiraahdo islaamka waxay ka sheeganaysaa islaam ma qaan aniga leexo islaam waa ahay bis oo qofka kale oo gaalka uusan shubha kugu furin
laakiin caruurta guriga kuu joogto hooyada guriga kugula nool waalidiinta guriga kugula nool haddii lasoo tashkiiliyo waa inaad ka dhaqi karto inaad ka dhaqi kartana waxay u baahan tahay in aqoonteedii leedahay mugaad maqashiin cudur ayaa yimiday sida hadda karooni imaahayay waxaa la sameeyey talaal ka hortag ah markuu ku dhaco talaal waxbaa la sameeyey maho inkastoo inta ilaahay u qoray ay ku bixaysaba waagan ay ku socoto muga waa inaad talaal heshid talaalku kan jirka kaliya maahan talaal qalbiga ahaa jiro oo qofka aad ugu hortegi kartid ama hadduu kugu dhaco aad talaali kartid si waxaan isaga badbaadiso walaal aan dadaalno insha Allah taala rabbi subhanahu wa ta'ala diinta nagu sugo